waa gabar Soomaaliyeed oo guursatay nin Kenyaati ah ma faraxsana iyadu sida aad u jeedaan sababtoo ah hooyadeed kama soo qayb galin arooskeeda oo caro ay uga maqan tahay maadaama ay guursatay nin ay sarraali ka ahayn hooyadeed waxa ka soo qayb galay arooska maamada dhashay ninka Kenyaatiga ah waa ay madax qaawan tahay sida halkan idinkaga muuqata arooskii ayaa la jaasayaa balse gabadha Soomaaliyeed farxad wajigeeda kama muuqdo sababtoo ah iyada hooyadeed ma dhinaca taagna ninkii Kenyaatiga ahay familkiisii ayaa arooska ka soo qayb galay isla markaana soo buuxlaafiyay hoolka haddaba gabdhihii Soomaaliyeed bariyay ugu dambeeyay sidan ay u guursanayeen Chinese Kenyaati Ugandais iyo sidoo kale dad kale waxay sabal ka joogtaa boqol midabyaleeyay ka dambeed isbarataan sida uu bohosha ugu dhici naagaha badankooda doqonnimo u geysay ajaanibta kuwa badankoodana waa loo amaanay waa ku khaldameen laakiin xilli ay ku dhacday oo wax laga soo qabta aan lahayn ay baraarugayaan meeshaan isugu imaanayaan strong women isleeyihiin feminist isleeyihiin magacyo la baxeen naagaha inta ka wada qaylinaya kulli ragga Soomaaliyeed haysta waxa soo abusay physically and mentally waxa u soo abusay rag ajaanib runta inay sheegay kulligood naaga qurquruxsana meeshaan imaadaan oo maanta dhan ragga caynaya oo aragteen wajiga qurxaarka ma reeban karaan dalo cabitaan ah dabada laga geliyo dalo ma aragteen daladan kookta daladaas kookta ah dabada laga xareeyo runta inay sheegay hatta gusma markay khalad samayso daladaas oo qabow oo furkeeda oo tuftada ka gelinay mana daaweyn karto naaga waxa jira dhaawacyadii ay ajaanibta ka soo gaaray ilaa hadda la nool markay dhaawaceed aragtaba ragga Soomaaliyeed ku xanaaqaysa runta inay sheegay naag allaala naagti meeshaan imaato oo faarax leh oo saan leh oo nin Soomaaliyeed caynaysa dib u raac sheekadeeda waliga aaminin naag meeshaan imaato oo faarax caynaysa daaragta ama nin Soomaaliyeed caynaysa waa abu ajnabi damage ba soo gaaray xaarka kuwa aan reeban karin baa jira kuwa waxa jira xafaayad runta inay sheegay oo siilkii iyo futadii isku dilaacinayaan بري جرينا برو يا الواحيو يا دلوين كالعبتان كلا يعب because ناكتان أو عيري سكست أو يا لما يكون نقطة مالي أصلا يكون في بعيسى أصلا all types of abuse بو جارسينا يا physical abuse يا mental بو جارسينا يا ما يكون نقطة مالي ويبريسى ما نكستب وحوك السماينا يا وحن سي أوجا تكتب ما يكون سو نقطة مالي maxaa keenay in gabdhahan la abuuso oo biraftada laga geliyo oo jirkooda la gubo waxaa keenay meel ay ku soo noqonayso male kan ay rabtaa inay daba taagnaato isagiina ma rabo mid baa hadda ka hor gabar intuu qaado oo duulkaas geystay isagoo madaxa ka toogan raba yaa baabuurtii ka dambaysa ku qayliday jidka geeskiisa istaajiyay kan imagine isagoo toogan raba niman ajaanib ah kala ka qabteen inay booliis ugu yeeraan bay rabeen oo iyadiina ka qaamay tirno this my husband uu qaaday waa gubay gabadha iyada hadda waa gubanta indha uma fiyoobo indhaha way beeshay caloosha naasaha inta dhan waa xarkageen sida ay ku nooshaad indhaha waxba kama aragto way joogtaa waalidkeedii la joogtaa oo haaya my friend runta idin sheegay marka all types of physical abuse ay ku sameeyaan torture ay ku sameeyaan waa torture garaysan naagahan wada qaylinaya ee shuba cabsiya ay koow ka tahay waa la soo torture garay they are torture xanuun baa soo gaaray dhibaato badan oo psychological abuse baa ku dhacay waxayna filaynin bay arkeen maalin kasta intay cayla fadhida war ma anaga dabadiina halayna ma aanan halayn adinka ajaanibta raadeen waxaanu go'aansan inaanu gabdhaha inta dhiman aanu ka badbaadina ajaanibta because mid kasta intii la soo dhaawaco oo la soo daldalooliyo oo la soo jeexo ay noola soo laabanaysa damage meel kasta ay Soomaali diganta waarteen kuwa waxa jira jidadka taagtaagan oo xasiiska iyo qurunka abu darbiyaha saacdo gabdhahaas gabdho wanaagsan bay ahaayeen oo hooyo aaba dhalay waxa saas soo yeelay waa ajaanib weey runta idin sheegay Minnesota fiiri Toronto downtown fiiri meel kasta oo tagtay magaalo kasta oo tagtay Minnesota waarteen gabdho Soomaaliyeed jidka taagtaagan hata magaalo kasta lagu maraa gabdhahaas gabdho waxay ahaayeen wanaagsan oo hooyo aaba la dhalay ahaayeen dhulka may soo bixin kumay dhalanin waxaas waxa damage ka gaarsiiyay waa niman ajnabi raaceen oo u qurxiyeen nolosha oo darooga baray wax soo cayriyeen ma haysanayaan limited time yar bay ka rabaan inta yar ay dhalaalayso yay rabaan inay darooga siiyaan ay wasaan markay
إن دروغة بران وسوا عيرنا تكره عصب يربان ناق عنو أجنبيين هاي سنة يمله هور أجنبيين هاي سنة يمله هور توحيكم في عند رير كودين دحجوك هور ناق تنشوف هذا مرة ده هور نقطين الرمل ولا سوا عيرنا مركز لا سوا عير دروغة دي بيربطها مهلي كرت سومالي دروغة استعمالها يمله سومالي دروغة دو ويش قيستان سومالي بس naag markaa darooga baratay oo khamri baratay oo kokayn baratay oo xashiis baratay oo balaayo baratay oo waxaan aan garanayn baratay lama hayn karo jidkay aadaysa way suubaysanaysa jidkaasay ku dhimanaysa markaa gabadhaas nolosheeda hadii la ilaalin lahaa oo la wacyi gelin lahaa barigii ay waxaan sameynayso ka joogi lahaayeen annaga waxaan go'aansanay kuwa dambe inaan wacyi gelino oo kuwan example ooga dhigno suuba absiya dhibaatada soo gaarto artan waa psychological damage ba soo gaaray naagtaas maskax ahaan uma fiyo dhaawacyadii soo gaaray ilaa hadda qarsanaysa annagana la dhex joogta kuwa kalena waa saas naagaha inta iskugu imaadeen kulli ee ragga Soomaaliyeed ay kulli waxa waaye naago abu ajnabi booda xaalka Toronto joogtay waad garanaysaan awartan buuran abu ajnabi way inta imaanaysa qaraabo tal iyo qaraabo ilaa habeenkiina dabaday taaganaysa شوفوين وحاس معنا الله ردان يديجي وانو كحشوني وانو كور ورقني لكن هذا ردان يديجينا بود حاركة وابو أجنبي وذا يقول الله كده أرد ديزر أبو أجنبي نين كذي بيبقوا حرتين أجنبي درتيس ناكست أو ماشان إماتا أو نين عيني صدارتان وابو أجنبي يكسروا بيستا لا وعي حم بسوقاري physical and mental damage بسوقاري psychological damage bay qabaan markay inta imaatan nin Soomaaliyeed bay caynaysa nin Soomaali muxuu ku sameeyay may guursanin waxa may arkin gaalay u tagtay gaala fasaadisay gaala khiribtay gaala fteedii qarxisay way si my friend suubo way naagta inta ka qaylinaysa waliba suubo nooc u xumaa way oo la soo niyad jabiyo oo dhalo buuxdo kooga haftada laga geli runta idin sheegayna my friend waxa inta imaadaan bay anaga caynay kan image waa suubo xunu fteedii dayacday وعروتي ناقة واحد جل عروتي عيري عروتي دشة عيرنيسا سي أين الأجنبي يقولوا كان يماجن ذا مركو الأجنبي عروتي كوس أو يدا وس أو لعك تكدع أو كريت كار كهلا واحد كستكبر بريو أو إسكت يمدع وانكرت أنت إيمانيسا ركز ومالي عينيس وأي شوك سنتاي هذا السيد على أركيسان وأيدي ويلك أيديس ويلك كيانك أيديس أي أكتاجن سيد على أركتان oo halkan madaxa soo xiratay oo aan si fiican u soo labisan waa ay qaawantahay wiilka eedadiis midda ka sii dambaysa oo waa gaalo cido balse gabadha Soomaaliyeed waxa garab taagan iyadana familkeeda oo aan sayd u sii badnayn waa tan gabadhii oo shoogsan isla markaana la yaaban sida la sheegay gabadhan aabaheed ayaa si xun ugu galay arooska isla markaana ku yiri kuma siinayo ninka yaati baxnaya waxaana sidoo kale la sheegay in muuqaal qarsooni ah laga duubay habeenkii hoolka arooska oo odag inuu soo galo ay isku sheegayaan markaan uu leeyahay odagi ama soo galay